bulshada Soomaaliyeed wuxuu ku soo kordhinayaa in dadka sharci la'aanta wadanka ku jooga ama soo tahriibay ama mataqaana sharcigoodii wax kaga dhacay ay heli karaan inay xuquuq u leeyihiin oo xaq u leeyihiin in intay baxaan ay driver license soo qaataan oo ay gaari wadi karaan ayagoon qof kale ku xirnaanin. kala fadhiga 93aad ee kulankooda 15aad oo ay yeesheen xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka Minnesota ayaa looga dooday sharciga ogolaanshaha wadida gaariga iyo kaarka aqoonsiga gobolka Minnesota in la siiyo dadka soo galootiga ah. iyadoona dood dheer kadib 69 mudane oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay u codeeyeen codka cagaaran ee haa, halka 60 ka mid ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ay codka guduudan ee diidmada ugu codeeyeen. haddaba Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan codbixintaasi dhacday. maanta dadkaasi waxay access u helayaan in driver license ay helaan. haddii ay driver license helaan waxa ay wadooyinka Minnesota safe bay noqonayaan because dad raysama haysta ayaa gawaari wadaya. familieskii soo adeegan waayay carruurahooda iskuulka geyn waayay ma garanaysaa ilmaha groceryga markuu dhamooda u soo gadi waayay ayaa maanta Janice waxay u helayaan inay soo adeegaan carruurta u soo adeegaan reerka u soo adeegaan carruurta iskuulka geeyaan carruurta isbitaalada geeyaan. arrintaas farxad weyn weeyaan waana guul weyn. aniguna runtii waxa farxad gaar ah ah inaan ka mid ahaa dadkii bushgareeyay labada aqalba aqalka hoose House of Representatives iyo aqalka sare ee Senate-kaba floorkiisa ka hadlay ku booriyay xildhibaanada inay baasgareeyaan. anigu ah Shucayb Sheekh Cali gudoomiyaha Jaariyadda Jubbaland waxaan soo dhaweynayaa sharciga cusub ee dadka immigrant ah ee soo galootiga dadka ka soo booday siliga iyo waxyaabaha la midka ah sharciga la siinayo sida driver's license-ka state of Minnesota aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Minnesota. anigoo ah magacayga Cumar Sayid oo u sharaxan xaafadda koowaad ee golaha deegaanka ee St. Paul waxaan soo dhaweynayaa sharciga maanta ay baasgareeyeen xildhibaanada gobolka Minnesota. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.